بسم الله الرحمن الرحيم habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka caawan qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah Israa'iil oo gordhaweyta duqeymo culus ka geysatay koonfurta waddanka Lebanon tani waxay ku soo aadaysaa saacado uun kadib markii Xisbullah ay sheegtay inaysan ka tanaasulin xaqa jiritaankooda isla markaasna hubka aysan dhigi doonin wararkii ugu dambeeyay ee amuurahan ayaan idin soo gudbinaynaa boqolaal yuhuud ah ayaa xoog maanta ku galay masaajidka barakaysan ee al-aqsa ee magaalada qudus ee la haysto Trump oo si rasmi ah u shaaciyay inuusan ka qayb gali doonin shirka G20 ee lagu qabanayo dalka Koonfur Afrika wasiirka arrimaha dibadda Iran oo si cad u sheegay sababihii ka dambeeyay in degdeg loo gaaro xabajoojin dagaalkii Israa'iil ay la galeen bishii June ee sanadkan dhammaan wararkan iyo qodobo kale iyo wixii warar ee soo kordha iyo faraqayntii ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka caawa aan ku bilowno qodobada wararka ugu waaweyn wakaaladda qaranka ee wararka ee waddanka Lebanon ayaa ku waramaysa in weeraro ay dhowr deegaan oo koonfurta Lebanon ku qaaday Israa'iil waxaana lagu sheegay inay ahaayeen hirar isdaba socda weeraro ah in deegaankaas ka dhacay mid ka mid ah weerarada ayaa lala helay dhismo ku yaala magaalada Tyr ee waddanka Lebanon halkaas oo la sheegay in mid kalena uu ku dhacay tuulada Taybah sida wakaaladda wararka laga soo xiganayo waxaa sidoo kale lagu waramayaa diyaaradaha Israa'iil ayaa fogaan dhow oo dhulka agtiisa ku martay magaalada caasimadda Beirut deegaanada koonfurta Beirut ku yaala oo ay shiicada degan yihiin Bartaakas ayaa Israa'iil militarigeeda waxa ay ku sheegeen in ay bilaabeen weeraro ay ku sheegeen isdaba jooga oo la bartilmaameedsanayo goobo militari oo ururka Xisbullah ku leeyihiin koonfurta Lebanon dhinaca kale ururka Xisbullah ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin inay Israa'iil iska caabiyaan halka Lebanon xeerarkii xabajoojinta lagu sheegay in ay xabajoojin kala dhexayso Israa'iil ayaa haddana waxaad moodaa in Israa'iil ay xadgudub ku sameynayso wadaxaajoodkii siyaasadeed ee xabajoojintaas lagu gaaray sida bayaanka ururka Xisbullah lagu sheegay Xisbullah ayaa waxay sheegtay waxaan xaqiijinaynaa inaan xaq u leenahay inaan iska caabino Israa'iil iyo gardaradeeda hubkeena iyo ciidamadeena iyo shacabkeenana waan garab istaagaynaa iyo madaxbanaanideena toddobaadkii la soo dhaafay madaxweynaha waddanka Lebanon Joseph Aoun ayaa amar ku siiyay militariga in ay xadgudubyada Israa'iil ay geysanaysa ay kaga hortagaan koonfurta Lebanon kadib markii ciidamada Israa'iil ay xuduudka ka soo gudbeen oo ay dileen inuu shaqeynayay dowladda hoose kadib markii uu meel mariyay heshiiskii xabajoojinta ee dowladda Mareykanka iyo Faransiisku garwadeenka ahaayeen ururka Xamaas ayaa sheegaya in wafdigoodii uu madaxda u ahaa madaxweynaha sare Khaliil Al-Haya inuu kulan kula yeeshay madaxa ciidamada sirta ee waddanka Turkiga Ibrahim Kalin magaalada Istanbul Xamaas ayaa kulankaasi waxa ay diiradda ku saartay xadgudubyada ay Israa'iil ka geysanayso xabajoojintii marka Gaza oo ay ka mid tahay inay duqeynayso xabadana ku furayso deegaanada ay Israa'iil maamusho dadka ka agdhow iyo iyadoo xadgudub ku sameynaysa xabajoojintii waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in loo baahan yahay in dib u dhis loo sameeyo marinka Gaza gaar ahaan bulaacadaha iyo wadooyinka iyo kaabayaasha korontada Al-Haya ayaa u mahadceliyay Turkiga doorka uu ku leeyahay xabajoojinta la gaaray wuxuuna ku nuuxnuuxsaday inay muhiim tahay in dowladda Turkiga ay sii wado taageerada u fidinayso dadka Falastiiniyiinta ah oo halgan ugu jira sida isaga xoreyn lahaayeen Israa'iil ayaa lagu sheegay bayaanka ururka Xamaas Israa'iiliyiin ayaa xoog ku galay masaajidka barakaysan ee Qudus xayndaabkiisa iyadoo ciidamada Israa'iil ay ilaalinayaan maamulka Qudus ayaa ku qiyaasaya in ka badan 900 oo Israa'iiliyiin ah inay xoog ku galeen xayndaabka goobaha cibaadada goobtan ayaa waxaa maamulkeeda gacanta ku haysa hay'adda waqafka islaamiga ah
oo laga maamulo waddanka Urdun. hase ahaatee Israa'iil ayaa xoog ku qabsatay bariga Qudus 1967 sida ay sheegayso deegaanada waqafka ah oo ay gacanta ku hayso Urdun ee diimeed iyo maamulba, halka Israa'iilna ay arrimaha amniga u xilsaaran tahay ee ka baxsan masaajidka iyo xindaabkiisa. dadka aan muslimka ahayn looma ogola inay masaajidka galaan ama ku cibaadaystaan xilliga muslimiinta loo ogol yahay inay masaajidka waqtiga reebaan ku cibaadaystaan. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan ayaa guul ku sheegay weerarkii iyo dagaalkii 12 maalmood dhacay oo Israa'iil iyo Iiraan dhex maray. waxa uu sheegay cadowga iyo Israa'iil ayaa isla markiiba xabajoojin shuruud la'aan ogolaaday kadib markii gantaalada Iiraan ay sidii roob ugu dayeen. hadafkooda waxa uu ahaa uu yiri ay dagaalku ku bilaabayeen inay weerar gaadma qaadaan, weerarkana uu noqdo mid duqeyna. waxay la ahayd Iiraan inay gacmaha taagayso isna dhiibayso 2 maalmood iyo 3 maalmood ka bacdi, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Abbas Araghchi. waxaa kaloo uu sheegay madaxda dowladaha markii aan kulamada lahaa waxay ku andacoonayeen in cirka waddanka Iiraan ay diyaaradaha Israa'iil u madax bannaan yihiin intii lagu wada jiray dagaalkii 12 maalmood socday. hase ahaatee waxay ku guuldareysteen in ay ka hadlaan in cirka Israa'iil ay duqeyn xoog leh ay kala kulmaysay oo waddanka Iiraan. marka laga gudbo inay leedahay difaac la kabyo badan oo Maraykan iyo Yurub isugu jiray oo lagu caawinayay, waa ka hor istaagi waayeen duqeyntii gantaalada Iiraan ay u geysatay Israa'iil. wararka caalamkan waxaa ka mid ah madaxweynaha Maraykanka ayaa ku dhawaaqay inuusan ka qaybgeli doonin shirka wadamada G20 la yiraahdo oo bisha November 22 ilaa 23 lagu qaban doono waddanka Koonfur Afrika. wuxuuna madaxweynaha Maraykanka hoosta ka xariiqay inuuna marnaba shirkaasi uunan ogolaanin, waxa ka dhacaya waddankaasna uunan isagoon xusin sheegay inuunan la dhacsanayn. xiisadda u dhaxaysa Maraykanka iyo waddanka Koonfur Afrika ayaa kor u kacday kadib dacwad waddanka Koonfur Afrika ka socotay la geeyey maxkamadda dambiyada caalamiga ah oo Israa'iil lagu eedeynayay inay ka geysatay xasuuq Maraykanka qasa. bishii May kulankii aqalka cad oo Trump la yeeshay madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika ayuu dhaleeceeyay waddanka Koonfur Afrika, wuxuuna ku andacooday inay dambiyo waaweyn ka dhacaan oo laga soo horjeedo dadka caddaanka ah. madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa ku gacan seeray eedeyntaas, wuxuuna sheegay xukuumadda waxa ay ka shaqeysaa waddanka oo dhan inay dambiyada hoos u dhigto, wuxuuna ku gacan seeray eedeynta rabshadaha lala bartilmaameedsanaya dadka caddaanka ah. dowladda Maraykanka ayaa isu diyaarinaysa siday ku abuuri lahayd saldhig military oo Maraykanku ay ku leeyihiin magaalada Dimashq si gacan looga geysto in awood loo siiyo xagga ammaanka waddanka Suuriya. dowladda Maraykanka ayaa waxay dhexdhexaadinaysaa heshiis inuu dhex maro Syria iyo Israa'iil. 6 ilood oo kala duwan oo arrimahan la socda ayaa wakaaladaha reer galbeedka qaar ka mid u sheegay. dowladda Maraykanka ayaa qorsheynaysa in magaalada Dimashq inay xarun ku yeelato, hase ahaatee horey looma sheegin warkani. haddana waxaa muuqata inay soo baxayaan istiraatiiji ahaan Maraykanka iyo Suuriya inay wada shaqeynayaan kadib markii ay dhacday xukuumaddii Bashaar al-Asad oo xulafo la ahayd waddanka Iiraan. saldhigaasi militariga uu Maraykanku yeelanayo ayaa irid u noqon doona qaybo ka mid ah koonfurta Suuriya oo la filayo in uu ahaan doono mid ku yaala deegaanada calaamadeysan ee qaybta ka ah wadamada heshiiska la gelaya Israa'iil iyo Suuriya xuduudkooda aan calaamadeysnayn. heshiiskan ayaa hadda waxaa wada dhexdhexaadintiisa madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. ku bilowna qodobka warkan ugu horeeya
weerarkan Israa'iil ay ku qaaday Lubnaan arrintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay warbaahinta Israa'iil iyo falanqeeyaasha Israa'iil ay sheegayaan Xisbullah inay is-abaabulayso hadalka Xisbullah hadda waynu maqlaynaa ma la oran karaa markan dagaal ballaaran baa laga yaabaa inuu ka dhaco koonfurta Lubnaan wararka soo baxay oo dhan waxay tilmaamayaan Israa'iil xadgudubyadeeda inay joogto noqdeen Mareykanka oo xabajoojintaas damaanad qaadanaya inuu wax tallaabo oo culus ka qaadayn waxayna u badan tahay sida uu sheegay hogaamiyaha ururka Xisbullah Naciim in xilliga ay doonaan iyo waqtiga ay doonaan ay tallaabo qaadi karaan waxaana muuqata xaaladdu hadda in maalinta kasii dambaysa ay isu bedelayso mid abaabul colaadeed laga yaabo inuu dhaco tan kale oo ayadan aan meesha ka maqnayn waxa weeye waxaa lumaysa oo ay sharafti ka dhacday dhexdhexaadiyaashii xabad joojintaasi Faransiiska iyo Mareykanka waxaana muuqata Xisbullah hadda in ay haysato qiil ay nafteeda ku difaacdo wayna sheegtay inay nafteeda difaacayso iyo dalkeeda waxa dhacana si dhow ayaan la socon doonaa waa gartay waa yahay xagga aynu eegno wararka kale barnaamijka aynu ku soo qaadanay arrimahan la xiriira wadaxaajoodkan iyo xabajoojintan waxay keentay inay dib u bilowdaan maraakiibtii ka gooshaysay badda cas mid ka mid ah shirkadahaasi oo Denmark laga leeyahay ayaa maamulkooda waxay ka hadleen arrimahaasi bal inoo warram maxaa laga yeelay arrintaas ninka madaxda u ahaa shirkadda ugu weyn ee maraakiibta badda xamuulka qaada iska leh ayaa sheegaya in xabajoojinta Mareykanka ka dhacday ay horseeday tallaabo dib loogu furayo marinka badda cas inay maraakiibta caalamiga maraan gaar ahaan maraakiibtooda wixii ka dambeeyay December 2023 shirkaddan oo maraakiib badan leh ayaa sheegtay inay maraakiibteeda ka wareejinayso badda cas oo ay wareejinayso dhinaca Afrika iyo Koonfur Afrika ilaa inta xaaladdu isbedelayso xoojiyinta ayaa weerar ku qaadayay maraakiibta baddaasi maraya gacan saar kala leh Israa'iil ama Israa'iil urura hadallada la xiriira buu leeyahay in ay meesha ka baxayso caalamiyiintii ayuu ka hadlay wuxuuna yiri waxa hadda dhacaya sidaa ma aha buu yiri Vincent Clark ayaa u sheegay warfideenada in uu ku gacan saarayo cabsida laga qabo isbedelka ku yimid ganacsiga caalamiga ah iyo sida uu dhacayo xoojiyinta ayaa waxa ay wadeen olole ay ku bartilmaameedsanayaan baddan cas oo ag marta waddanka Yemen iyagoo duqeynayay Israa'iil maraakiibta u raran labadii sano oo soo dhaafay weeraradaasi ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga caalamiga ah kuna qasbay maraakiib fara badan in ay ka yimaado Asia iyo Europe in ay ka wareegaan Canal Suez oo ay wareegaan dhinaca Afrika safarkaas oo la sheegay inuu ka dheer yahay kii ay hore u mari jireen waa gartay waaya aynu ku laabano arrimaha bariga dhexe isla Gaza wararka iyaga dabcan barnaamij baynu ka diyaarinay oo soo geli doona arrimahan ciidamada ilaa iyo bari ilaa iyo habeen dambe ilaa iyo caawa barnaamijyadeena aad baan u soo qaadan doona arrimahaasi hadda Netanyahu waa hadlay intaanu barnaamijka ku jirnay wuxuu leeyahay cidna uma nihin wakiil cidna ka amar qaadan mayno isla markaasna wuxuu ku andacoonayaa inay u madax bannaan yihiin inay sameeyaan waxa ay doonaan isla markaasna waxa uu leeyahay Lubnaan iyo Gazaba ma uga baahnin Mareykanka inaan fasax ka qaadano waxa aan doonayno waxaan nahay wiil laba waddan madax bannaan isbahaysi leh lana dagaalamaya waxa ugu yeeray dhidabo ka soo horjeeda maxaa lagu fasiri karaa hadalkan Netanyahu wararka ka soo baxay Israa'iil gudaheeda dadka arrimaha Israa'iil aad oo la socda waxna ka qora waxay leeyihiin waxa uu lumiyay amarkii uu siinayo militarigiisa waxa la wareegay generaalo iyo maamulayaal Mareykan hadallada uu sheegay oo dhan waxa weeye hadalla uu shacabka ku caawiyo xaaranayo dagaalka marinka Gaza kuma noqon karo dagaalka Lubnaan kuma noqon karo laakiin duqeyntan uu wado iyo xadgudubyada waxa weeye waxyaabaha keenay in la aamini waayo oo lagala wareego amarkii dagaalka iyo ciidamada inta marka la yiraahdo Netanyahu ciidanka Israa'iil wuu jabiyay
jabki ay la kulmeen ayuu Maraykanku wuxuu rabaa in uu badbaadiyo Israa'iil maaha in asxaan loo sameynayo ururka Xamaas iyo dadka Falastiiniinta waxaa caddaatay oo khabiiradii militariga abaanduliyaashii dagaalka qayb galay askartii dagaalka qayb gashay saraakiishii kulli waxay isku raaceen inay la dagaalamayeen ciidan aan la arkayn haddana waxaad moodaa xabajoojintan inay Israa'iil rabto inay dhulka ka dhisato wax Xamaasna si dhow ayay ula socotaa oo duqeymaha iyo xadgudubyada Israa'iil ay geysanayso ay ogtahay inay Xamaas ka baqaynina marka sida private-ka ama sida gaarka ay ula hadlayaan ayaga Maraykanka iyo waxay soo sheegaan kala duwan tahay Maraykanku waxay ka codsanaysaa in ururka Xamaas hubka laga dhigo waa maareen waayeen inay hubka ka dhigaan khatar ayay ku yihiin jiritaanka Israa'iil laakiin siday tahaba waxay u badan tahay heshiiskan inuu burburo sida khabiiradu sheegayaan sababtoo ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay xeer aanan ka soo bixin oo taageero gaar ah loo raadinayo oo lagu sheegay golaha nabadeed ayuu Maraykanku wuxuu rabaa inuu meel mariyo ogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in aanan hawsha golaha ammaanka ee qaramada midoobay la wareegi karin Maraykanka markii hore asaga nabadda caqabad ku ahaa xabajoojinta diidanaa hadda waxaanu riixanayna dad badan ayaa sugaya wax ka sokeeya in caalamka oo dhan uu ololeynayay in dowlad Falastiiniinta la dhiso 157 dal ay taageereen Maraykanku markuu wuxuu rabaa inuu maaweeliyo maamulo madax bannaan oo madaxweynaha Maraykanka laftigiisa hoos taga ayuu rabaa inuu ku qabsado Maraykanka Gaza qabsashada Maraykanka Gazana waxaa ku lamaansan in awoodda iyada laftigeeda Israa'iiliinta lagala wareego sababtoo ah waxa uu rabaa si tartiib sida qabiilada qaar ay hadalku dhigayaan inuu xaaladda dejiyo laakiin arrintani dagaal inay ku noqoto ayay u dhowdahay Xamaas iyo Turkigana wada hadalla ayaa u socda oo mas'uulkii ugu sarreeyay wada xaajoodka ayaa la kulmaya mas'uuliyiinta waxaadna moodaa in Xamaas ay ku kalsoon tahay hawsha ay Falastiin ay wadaan Turkigu wadaan waxaana muuqata Netanyahu iyo wararka uu sheegayo inay wax badan ka soo noqonayaan waa gartay waa yahay waxaan u imaan doonaa Maxamed Venezuela arrimo aan wax ka weydiin doono laakiin Iran hadalkan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ee uu sheegayo dharbaaxadii ay ku dhufteen Israa'iil inay keentay in xabajoojinta la gaaro طبعا warkan warar u eg baan sheegnay oo madaxweynaha Mareykanka laba arrimood buu sheegay mar wuxuu yiri Israa'iil waana xanuujiyay waa la xanuujiyay marna wuxuu yiri aniga badbaadiyay Israa'iil waxaana tartiib u soo baxay warar kala duwan oo la qarinayay waxa kamid ah xaruntii aynu ka sheekaynay ku tiil waliba meel u dhow safaaradda Shiinaha iskuul caruurta ay ku ciyaarto goobo dadku ay degan yihiin oo xarun deel aad looga yaabana aniga ka waranay iyo sidoo kale goob la sheegay in lagu dilay dhowr iyo 10 duuliyaashii diyaaradaha F-35 hadalkan wasiirka arrimaha dibadda Iran uu sheegayo ma la oran karaa waxaas la sheegay uu xaqiijinayay wax kale oo ku daray waxa uu la hadlayay telefishin Iran ay leedahay oo adduunka intiisa badan mamnuuc ka ah gaar ahaan wadamada Yurub oo la yiraahdo Press TV waxa uu sheegay wadamada Yurub marka uu la kulmayo waxay ka hadlayeen buu yiri igala hadlayeen in Israa'iil ay hawada Iran ay u gacan banaanayd marnaba waxay ka mari waayeen oo yiri afkooda soo marin waayeen buu yiri in Iran ay si fiican isu difaacday lakabyadii faraha badnaa ee difaaca ahaa Mareykanka iyo Israa'iil iyo Yurub ay iska kaashadeen oo dhanna ay gantaalada celin waayeen qasaarayaasha dhowr goor hore ayaan ka hadalnay qayaalayaal badan oo la sheegin baa jira madax badan sida madaxda looga dilay Iran ayaa saraakiil sare Israa'iil laftirkeeda looga dilay iyo duuliyaal waxaas oo dhan waa qarsatay laakiin hadda waxa cad Iran inay leebaqsaneen ama Mareykan ha noqoto ama Israa'iil ha noqoto dhowrkii toddobaad ee ugu dambeeyay laga soo bilaabo hogaamiyaha ruuxiga Ali Khamenei lagu keeno wasiirka arrimaha dibadda madaxweynaha afhayeenka baarlamaanka kulligood waxay ka hadleen inaynan marnaba wax tanaasul ay gorgortan ka galayeen barnaamijkeeda nuclearka hanjabaad iyo digdig iyo qorqabadna ayna heshiis kula galayeen Mareykanka waxaana cad in hawl joogta ay wado gantaalo iyo agabkooda ay difaacayaan waxaana muuqata Iran
inay darsi weyn ka baratay weerarkii 12 maalmood ahaa ee Israa'iil iyo ayada dhex maray. Israa'iil waa jeclaan lahayd inay dagaal ku noqoto, laakiin siduu xaalku yahay Xamaas iyo Xisbullah iyo Xuutiyiinta ayay maalin laadahay dagaalkii 12 maalmood ahaa oo xanuunka badnaa oo kale inay soo noqoto Israa'iil ma rabto. waaye aan ku soo gabagabayno Venezuela. Maraykanka waxaa la filayay inuu xilli hore weerar qaado toddobaadkan gudihiisa, laakiin waa ku dhici laayahay baa la leeyahay. Qoborada Amerikaanka qaarkood baa ka hadlay arrintan, maxay sheegeen? Colonel Douglas McGregor ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray haddii Maraykanku uu dagaal ku galo waddanka Venezuela in ay u diyaarsan yihiin 100,000 oo ciidan ah oo u tababaran sidii militariga. Intaa waxaa dheer buu yiri waddanka Colombia la yiraahdo ayaa xeeb dheer la wadaaga waddanka Venezuela, ayaguna waxaa laga yaabaa inay dagaalka qayb ka noqdaan oo ay nala dagaalamaan buu yiri. Waxaa ayadana aan meesha ka maqlayn oo soo gaaray maraakiib Ruushka uu leeyahay oo kuwa dagaalka ah. Waxaa muuqata ilaa 1880 Maraykanku wuxuu tirinayay wadamada Latin America inay yihiin wadamada uu Maraykanku saameyn ku leeyahay oo cid kale aan soo geli karin. Saameyntaasi hadda waxaad moodaa si weyn inay burburayso. Waddanka Venezuela waxay ku riixday in uu xiriir iskaashi la yeesho wadamada Shiinaha iyo Ruushka oo labadaba xubno ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo waddanka Iiraan. Waxaa intaa dheer in golaha ammaanka ee qaramada midoobay howlaha uu Maraykanku wada aan marnaba lagu soo qaadin. Haddii uu dagaal dhacana waxay noqonaysaa mar kale oo Maraykanku isku dayo inuu yareysto nidaamkii caalamiga ahaa ee asaga laftigiisa uu wax ka sameeyey wixii ka dambeeyay dagaalka labaad ee adduunka. Intaa marka la yiraahdo waxaa ayadana soo taraysa qaraarka la rabo ee qabyada ah ee la rabo in la marsiiyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Maraykanku wuxuu kala sareeyaa 5 dal ee kala ah Faransiiska, Britain, Ruushka, Shiinaha. Wuxuuna rabaa in uu marsiiyo qaraar aanan lagu xusi doonin qodobka 7 ee axdiga qaramada midoobay. ciidankana ma rabo in ciidan nabad ilaalin lagu tilmaamo. Arrintaasna khabiirada qaar waxay leeyihiin waa fashilmaysaa. Khabiiro UN-ka iyo sida u shaqeysay yaqaanana waxa ay qabaan oo xagga qaanuunka wax ka og inay dhib badan tahay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyo qaraar uu madaxweynaha Maraykanka rabo asagoo xabad joojinta muddo badan hortaagnaa. Waxaasoo dhan marka la isku soo xorxooriyo waxaad moodaa Maraykanka markii ay timaado wadamadii dariska lahaa ee asaga uu ku sheegi jiray in ay yihiin deegaanka saameynta uu ku leeyahay ayaa hadda waxaa soo galay wadamadii ay adduunka ku loolamayeen. Weeraradii iyo wixii uu qorsheynayana uma badna in ay lagu degdegi karayo sababtoo ah masaafada ay isu jiraan Venezuela iyo Maraykankana waa dhowdahay. Gantaalo guuxooda ka dheereeyo oo khatara oo Ruushka uu keeno iyo agab kalena waxaa laga yaabaa in dagaalku u noqdo mid fool xun oo saameyn ku yeesha Maraykanka.